horta aad baan ugu xumahay in aan like mar walba farxadun aan idinla qaybsan oo marka qaarkoodna ay qasab tahay inaan waxyaabaha jira aan idinla qaybsado. dadka qaar say banaanada ka maqleen ama ay u og yihiin baba waxaa jirtay arrin ah in baasaboorka laga laabtay sababo daraadeed. malaha wax private weeyaan, malaha waxaan iska jeclaysan lahaa in waxaasi uu wax aniga keliyaata igu saabsan uu noqdo, laakiin dee qof social media ku jiraanahay waxaa marmarka qaarkood igu qasaba in aan sida aad farxadda ila qaadatiin baba marka qaarkoodna murugada ila qaadatiin. maanta arrin baa ka dhex dhacday airportka dhexdeeda. malaa inaan baxaan rabay laakiin way suurtogeli weyday. dee qofku goormu baxaa markuu baasboor haysto baxaa, laakiin qofku markuu bilaa baasboor yahay ma bixi karo. kulli iska ogtiin oo malaa dad Afrika joogtada ogeyn hada ogaani, dadka Yurubta iyo Mareykanka joogana kulli waa iska ogtiin oo malena dadka Afrika jooga hadii ogeyn hadii ogaanayaan. dadka Yurubta iyo Mareykanka joogana dee si fiican bayba uga warhayaan wax walba. marka aad qof Yurubta Mareykanka jooga tahay oo qaxooti tahay, malaha qaxooti baan noqonaa. dhibaatooyinkii wadanka naga keenay baan sheegnaa. marka dee qof walba meeshii dhibaatada ka keentay looma ogola inuu tago. haddaad tiraadid Falastiin baa ka imaaday oo xaggaasaan kusoo dhibaatooday, baasaboorkaaga waxaa lagu qoraa inaad wadankaa tegi karin, wadankaa malaa kama degi kartid. haddaad tiraadid waxaa la lahdaa waxaan kasoo baxay oy dhibaata igu qabsatay Syria kuma laaban kartid. dee Soomaalidana waa sidaas oo kale, haddaad tiraadid dib baa Soomaaliya keentay, Soomaaliya kuma laaban kartid. markaasaad ogeydeenna maalin dhaweyd aduma dhaweyn meelaha 3 bilood 4 bilood ka hor bay ahayd, waxaan tegay Soomaaliya. saa hore idinku sheegana wadanka aad ka timiday ee qaxootiga ka tahay laguma ogola inaad ku laabatid, sababtoo hadee wadanka maadaama ka timidood qaxooti ku ahayd baba waxaa lagu odhani wadanka ha tegin, sababtoo wadankaasi oo wadanka aad noo sheegtay in aad kasoo tagtay oo macnaha dee kasoo tahriibtay. markaa fadlan ha isku dayin in aad wadankaa ku laabatid. macnaha baasaboorkaa ku qoran tahay wadankaas adduunka meel walba ka tegi kartaa, laakiin wadankaa ma tegi kartid. markaa dadka Mareykan iyo Yurub jooga way garanayaan, laakiin dadka Afrika joogin haddaadan garin haddaad garanaysaa. markaa dhibta dhacday ayaa ahayd inaan anigu tago Soomaaliya. waad aragtay maamaleeyaan oo Soomaaliya jooga. dee aad baan ugu xumahay qof malaha markii hore xir ahaa oo malaha meeshuu doono tegay oo haddana baasaboor laga laabtay. wallaahi way dhibay, aniga way xanuujinaysaa. waraa wax ku farxa maa way dhibaysaa markaan dadka meelaha ka maqlo like shuxda Dirisle Kenya waa inuu joogaa uun, sababtoo hadee ma laaban karo baasaboor ma haysto. Dirisle baasaboorkii baa laga laabtay, Dirisle maxay Dirisle Kenya kama bixi karo. intaad meelaha ka maqli lahaydeen waxaan jeclaystay anigu inaan idiin sheego. haa Soomaaliya waan tegay, haa meelo kale waan tegay. dee markii hore horta waxaan iska moodayay inay kaftantee, laakiin dhibta weyn ay igu qasabtay inaan idiin soo bandhigo waxay timiday isla maanta. macnaha haddadan aan idinla hadlayo aan airport ka yimid, macnaha ma dhaweey airportkaa jooga waxaan rabay inaan laabto tigirkay wax walba way goosnaa inaan laabtaan rabay, laakiin laabashadii aan isdhahay laabo
waxaa la dhahayba waxaan awoodid maba shaqaynayo waraaqad ahaan bad wadataa ma wax shaqaynayo ku duuli kartid ama aad wadankaad kaga timid aad ku laaban kartid maaha sababtoo marka systemka la geliyo systemka ma soo saareeyo macnaha waxaa la dhahay waxaan waraaqad ahaan mooyaane passport ahaan ma wadata hadda wallahi waa iska daba cararnay waxyaabo badan aan sameynay wax walbaan isku daynay inaan hagaajino meel walbaan galnay ugu dambeyntii dee waa la fadhiistay waxaa la dhahay meela aan lagu ogoleyn ama waxyaabo aan lagu ogoleyn baa samaysay marka macnaha waraaqad ahaan baad imika wadataa marka systemka laga eego systemka passportka kuma jiraba waa wax laga xanuunsado wallahi waxaan ku farxay ma kulleydee inaan xor noqdo iska jecelahay inaan meel walba iska aado wadankayga aado wadankaa kala tago hadda meeshaa kale ka dego meeshaa kale kasii dego waan iska jecelahay waa waxaan jecelahay waan jecelahay inaan meelo ararko waan jecelahay intaan dhalinyarada ahay ee macnaha ciyaal iyo xaas iga daba qaydin inaan adduunka meelaha qaar soo arko laakiin waxaa dhiba adiga oo macnaha rajaynaya mar uun in aad waxaad ku faraxsan tahay samaysid inay dhibaato kula kulanto maanta ma dhiman waan noolahay waan faraxsanahay inkastoo sidii hore faraxsanayn dee qof wax uu haystay lagu yiri waxba ma ahaba waa dhibaato kuma farxaysid laakiin like nimo oran karo waa dhibaataysanahay laakiin waxaan jeclaystay maadaama farxad idinla wadaago mar walbaba wax walba reerayna idinla wadaago haddana in aan idin sheego un dhibaatadeedu in yiraahdo aad baan wax mahay aanu kama bixi kara Kenya sababta passport ma haysto passportkii malaha waa la celiyay haddaad islahaydeen ama meelaha ka maqasheen Drisle muxuu uga bixiyay wadanka waa passport la'aan waad ku saxsantihiin waxaan uga bixiyay wadanka wax weeyaan passportkaygii ayaa la iga ceshtay wadankan markaa kama bixi karo imika waxaa jirtaa waxa la soo qoray hal mar ay tusaa عمر يرسل عمر حين صح meelaha suuqay geeytiisa passportka laga waabsado sameeyay ugu taglay waa jeclaysiin ismaayna iga laabto waxa weeyaan waa bari jiro raadi xoraa shuwate